laga soo saaray meeshii anagoo 230 qof ya guri baa la soo kaan keen liidaa Titanic guriga dushana lagaga xidhay Google ma laha waa sibid weeyaan Google ma laha dhammaantan 230 kanagi baa la soo kaan keen halka dhar ma haysano maalintii la soo xidhay aniga January 22 ahayd 7 bilood kadib yaa iigu horeysay inaan arko ama ay ogaadeen qoyskanagu inaan noolahay 7 bilood kadib ya inaan noolahay inaan dhintay aniga kaliya ma dhammaantanada 7 bilood markaan joognay ayaa qoysaskanaga nala tusay 7 bilood halka ku jiro biyo ma helo meedhi ma helo musqul ma helo guriga dhexdiisa yaa intaanu jeerigaan kala goynay oo laba dhagax dhiganay yaa halkaasaan ku dhex saxarona wax saxarada naga qaadaa ma jiro oo ku xanuunsanaynay oo ku rafaadinay waxyaalahan xusuusto waxa kamid ah shay yar oo macaawisa oo nu helay iyo garan yar oo dan iska saareen injir baan ugu gashay injir ya anigu runtii isma lahayn injir nooca inta leeg ba yaa jirtaba isma lahayn ya waxaan xusuustaa maalmaha kamid ah aroortii macawustaada intaad ka guri kari weedo waan xusuustaa Cabdi Khadar baan xusuustaa macawus yar u xidhnaa intuu injirti ka dhameyn kari waayay meesha laga laabo macawusta yaa la jaray macawustii yuu jaray macawustii buu jaray wuu gooyay macawustii ya waxay aan ku tusay calashan heerka ay gaadhay inaan ka guri kari weyno aroortii markaan soo toosno macawusaha intaad adoo qaawan macawusta aad xidhan tahay saarto يا لبن سافر إنه صاحبها يا إن شرتك على قرية ما كمذا يا واحد عادي مركي إن شرتي نقدر ما مويد يا محمد ولا يا فكر سوتشي دي وحيد النيوم مالها إن شرت ما والله إن النيوم محوها إن شرتي بدي بالنقص ونقنيسة وحيد القرشان قادنا ما أنت بعد أنت سوق قادنا بيرو أنكو ورنا وحال حسوسته وأن تريني إن مركي أنكو قرينا لا بكوني تضاب بقول حبوا إن شرة ينبحكو قرية يا أون ميل سرني يا بل أدليست بل إنجرتن محوها عند دمين كرلان بلني دماتيين كله لكن وحياه توكد على ناس وحياه متقرن يسج درك نجسيدا نحرنا هاي يا وحكد على نيا يهد ونشوتين كرن مرة وهاي الروح بلا أذنه أن تضاب بلود هلين شركي سووا بيو وكشبه يا محوها كمان دمانيسو وحيالها محوها حلقة كلية ما هبين والبانو حلقة كتيرة أينا نلبحي وأنا حسوسته بور قابل لا لبحي دوريتون شو هو كده حجري وين دبالي أنا يلا لبحي هو بالي جلني يا تذكر حلقة يا وين النور ميسن هو دير وين almost 8 متر هو سقطن يا وذن أجاني إن أي هبين تاي إيه إن مالن تاي أضاهل كوتشي هيا تنبيه لبوش ويا ولا وود بعتينيه every day نبلا لبحي و dadka halka jooga ayaa waxay yihiin dadka helayaba in dad kala dhibaateeyeen ku raaxaystaan askarta halka joogta waxay u arkaan shaqadoodu inay tahay just in dadka la ciqaab kaliya in shaqada loo idmaday ay tahay iyo aaminsanyihiinba waayo obsessive bay ku noqdeen askariya ayaa u yar lagu dhihi waan xusuustaa askariya ayaa in daahir leeyahay oo anaad xusuusanayo ya maalmaha kamida anoo aqabad ku jira intii la iga saaray meesha aqabad la iga soo saarayo ya waxa la yidhi halgan u yar halgan markii aan aqabadii saa iga soo saaray iyo budigu bilaabay garaacay waxaan ku yidhi wuu soo garaacay ilaa intuu mas'uulkii commissionka ay xirada haystay uu ii keenayay oo ilkaas la yiraahdo ilkaas markuu saa soo fadhiisay waan xusuustaa waxaan ku yidhi ma adag ku soo amray ugu yidhi intuu wadada soo socdo dhan soo garaac wuxuu yidhi ana ku soo amray markaan soo hor fadhiistay bakeeri shaaho kulul bigu shubay ya soo qaylaya ya habeen walba intiina la soo saaro guriga dibkaas oo dhan aan ku mutaysanayno intii inaanu halka ku jirna loo qoori waayo ya kolba nin magaalada ka yimid oo meesha u qaylaad yimid ya inuu satisfaction ka helo habeen walba intii mid anaga kamid la soo saaray ya hortooda ugu garaacay muddo dheer kadib markaan halka ku jiray waxa la yiri intaan dhaafay waxa weeyaan timahana laga xiray ya waxa la yiri timaha waa in idin dhukuro dhamaantiinba ya waana laga dhukuri jiray timahana laga dhukuri jiray waxa lagu dhukurayaa oo lagu xirayaa hal makiinada ya waxana lagu xirayaa anaga 30 ruux ya adoo ilmada iska tiraya oo yaadin ooyi karin
makiinada maad garanaysaa 30 hal ruux bayna makiinadii u xirin anagoo 32 qof ayaa hal makiinadina lagu xiray ya oo madaxnagu dhiig naga daayay wadan ka hadi karin lagu garaacay hadaa tiraahdo muxuu ahaa war uma adkeysan kara xanuunkan kadib markaan muddo dheer inta ku jiray waana laga soo saaray markii laga soo saaray xarada annaga run ahaantii maxaabiista kale maadaama uu inta siyaasadu xidhan waan laga ilaalin jiray inaan dhex galo muddo kadib ayaa waxa dhacday in nala geeyo maxaabiistu meesha ay muxuu ahaa ku dhaqmay waan xusuustaa dadka halka ku xidhnaa muddo muxuu ahaa waxaan ku qiyaasayaa xilliga markii nala geeyay halka 5 kun inay ahayd tiradoodu anigu waan xusuustaa waxa la geeyay guri 17 la yiraahdo gurigaas waaga aan xarada galay anoo kiis bay dadku xariisan yihiin ya aniga waxa la igu xareeyay guri la yiraahdo 17 oo ay degan yihiin dadka ku xidhan dambiga dilka ya guriga waxa ku xidhnay waa arintii igu la yaabka badnayd waayo hal guri oo 8 iyo 4 mitir iyo ku muxuu xidhnaanayaan dad ay tiradoodu gaadho 200 iyo something ya sariiraha yaalana waa 230 xabo waxaana ku xidhan guriga 200 iyo dhowr iyo waxaan qiyaastii 200 iyo dheeraad baa ku xidhan siyaado ya ku xidhan waa arintan rumaysan waay halka waxa ku xidhan dad waalan baa ku xidhan oo almost muxuu dhowr iyo 10 ruux waalan yaa ku jira dadka dhexdiisa ya guriga dhexdiisa ayaa habeen walba waxaad arkaysaa nin miskiin oo maxbuus oo la garaacayo la dhibaateynayo ani Cabdirasaaq leeyahay ayaa guriga nala geeyay nasiib wanaag waxaan seexan jiray dhulkan seexan jiray ya waayo halka guriga dadku badni wuxuu ka qabo ruuxa kugu xiga marka uu isrogayo waa inuu ku toosiyo adiga hadii kale isma rogayo waxaana loo sameeyay nin sinasraad leeyahay ka shaqeeya oo shaqadiisu wax kale ma aha inuu dadka un kala seexiyo cidhiidhi heer ku gaadhay ya muddo dheer baan halka ku jiray markaan muddo ku jiray halka waxa dhacday markii ay ahayd 2008 bishii 8 ya waxa dhacday in maxaabiis kamida maxaabiista siyaasadda waxa nida u dhigtay oo la leeyahay been baad sheegteen qoriyo aan jirin baad sheegteen nin waxa jiray la yiraahdo Maxamed Shaqaadan oo soo jeeda gobolka Togdheer ninkaas wuxuu xogaha bixinayay wuxuu sheegtay inuu qori BKM hayo Maxamed Shaqaadan waa la soo qaaday waxa la keenay meeshii uu ku sheegay qorigii baa laga waayay kadib waxa la yiri dhammaan wixii ururka sheeganayay qori sheegatay oo dhan been bay sheegayaan hala soo saaro waxa la soo saaray dad 200 qof meelaha gaadha 200 qof waxa la keenay meel yaro madraka oo muxuu xabsiga dhexdiisa 200 iyo 300 askar gaarta la keenay oo biro wadata tuubooyin wadata waxa la yiri hala garaac ragan hala maro waxa nin walba looga tagay nafka dhowr kadib maxaa bilaabatay in ay shakhsiyaad iyaga kamid yihiin la yidhaaho waxaad qirataan dad inay idinka dambeeyeen inaad kacdoonkan samaysan dadku isku wada shakhsiyaad ma aha shakhsiyaad marka iyaga kamida oo muxuu ahaa aananigan muxuu ahaa inaan magac dhaba aanan rabin laakiin aan xusuusanayo oo qoliyo orar kamida yaa waxay yidhaaheen arrintan oo dhan waxaa ka dambeysay qoliyahan dhalinyarada ee siyaasadda oo xidhan inaanu kacnaba annaga markaa dhib baa noo bilowday maalinta laga bilaabo 2008 bishii 8 habeen ay salaadii subax ay ku soo dhowdahay roobna uu aad u daayo bishii abriil iyo ku egtay baan jeclahay waa guub yana la soo saaray dhamaantan waxaana loo bilaabay ciqaabtii ugu xumeyd baan loo bilaabay dhamaantan horta dharkan laga wada dhigay ya roob baa daaya 4 cisho yaad banaanka taagnaanaysa oo roobku kugu daaya muddo 4 cisho markaan roobku taagnayn anagoo nigis xidhan dhamaantan ya ragga naga nigisyada xidhanay isku qaawanaysa dhex joogna waxa kamid ah mid laba kala qabto wax ya ku gabadhiisa la qabo dad dhamaan isku wada xilli weeyaan ya intii la wada qaawiyay Europe nagu duldii jiray waxyaalahan weligii loobin waxa kamid ah habeenada kamid ah ya waxa dhacday ana la soo kaxeeyay waxa la yiri nin baa halgan si gaar ah wax uga sheegay roob aad u daayay waxa jirta meel boy
oo biyaha ka soo dhaca guryaha ay saa u maraan baa jirta halkaas aniga la geliyay laba nin liyo muxuu ahaa boolisa oo raincoat xidhan biyaha gibida ka yimaado dhan ba meesha maraya waxa la yidhi halkaas ha ku jira baa la yidhi caawo oo dhan waa la iseexiyey intii la iseexiyey laba nin liyo boolis muxuu ahaa boolisa yaa isku kay bedbedelaysa haddii aan isdhaqaajiyo oon saa isu yar jimacsayd ama biyaha iska rogaan sidoo waa la garaacaya marka waxay noqotay inaan habeenkii oo dhan halka ku jiro saqdi dhex markay ahayd waxaan xusuusanayaa 10kii dambe markay yaani miiri ugu dambeeyay arrinimadu waxaan ku soo toosay dadka muxuu ahaa maxaabiista furanka u soo qaadan arrinta quraacda jaqaftooda iyo ku soo baraarugo isma ogin unconscious baa noqday arrintii nin taliyayaasha meesha kamid ah madaxda ka ahay ee soo maray ninkoo sidii iidu taagan oo isku bedbedelayaan wuxuu ugu yidhi maxaa ku dhacay hadalku nadiisin ka soo saaray buu waa laga soo saaray hilibkeygii dhinacan aan u jiifo horna wuxuu ku haray meesha sawirka idin ku dhac jiray halkaas laga soo saaray waxaan ku soo noqonayaa guriga dhibka ugu faraha badan nagu soo maray anaga qabow baa la yidhaha qabow waxaa lagu bixiyey waa meesha cadceed ma arko gurigaas afarta dhinacba guryaha ka haya waa guri aad u qabow anagoo 30 iyo dhowra oo qaawin ayaa halkaa la isugu kana keenay aqaabtii ugu xumeed baan loo bilaabay aqaabaha muxuu ahaa loogu bilaabay waxa kamid ah kow in lagu istaajiyo waan xusuustaa anagoo 7 yaan taagnayn muddo aan ku qiyaasayay inay tahay 5 cisho yaan taagnayn boolis baa ku ilaalinaya haddii aad dhaqaaqdo oo jimicsays tiraaho waa lagu garaacayaa haddaad gidaarka taabato waa lagu garaacayaa ilaa marka dambe intaad unconscious noqoto ruuxu uu iska dhaco oo qab tiraaho oo sibirka ku dhacdo markaa dhacda laguma deynayo waxyaalahan weligii loo waxa kamid ah nin la dhihi jiray Ibrahim oo muxuu ahaa ree huraala oo yar oo ku xukunaa inuu ahaa seel ololka muxuu ahaa ururka oo aan lafa iyo nin la yiraahdo muxuu ahaa Cabdullaahi Dhuubane yaa sibirka ku dhacay waa askariyo boolisa yaa sibirka ku dhacay sida loo garaacay ninka raggan islahayn nafti baa ka baxday sidii loo garaacay yey istaagin iyagoo muxuu ahaa caadiya si loo garaacay saakaliya laguma deynaya annagu oo taagan yaa anigii maxamed aadan dalab intiina la kaxeeyey yaa intii bannaanka lagu rogo iska rogo idil oo carraa oo niisa oo lagu qooyo oo la kala muxuu ahaa bixiye carrada yaa halkaa intiina la geliyaan intiina la qooyina lagu ridi jiray ya oo 20 nin aysaa ku haynaysaa laakiin naftu waa cajaayib waxaasoo dhan adaa ku xoog badanaya markay naftu ku qabato ya waxaan xusuustaa carradii dhagaha iga gashay 4 bilood markaan sidaa idhaah dhagaha iga soo daadan jirtay ya halkii intiina lagu soo celiyay annagoo carradii leeyaan carradii hadana taagnayn quruurixii carradaasi anagii maxamed aadan iyo foosi iyo saalax faroodi iyo intuu lugaha naga galay yaanu sida qodaxda iska soo fadhi jiray qodaxda waxyaalahan iloomin weliga waxa kamid ah 3-4 habeen markaan taagnaa 4 habeen yaa nin kaaba ahaa oo maxamed cabdi xaashi la yiraahdo oo hayb ahaan ka soo jeeda magaalada Dhagaxbuur oo isagu waxbana aan ku tiri jirin laakiin leeyidun raggan horjoogad ka tahay arma badana ahaan jiray yaa garasho aniga garanayo ya wuxuu sidii halgan bal maxaad u samaysaa maanta oo naxariis oo ugu naxariisan kartaa oo aadna dib ka soo gaarin karin November wuxuu yiri halgan dhaqdhaqaaq buu deyn waayay musqusha lagu xareeyo musqusha waxa weeyaan musqul yar oo 1 meter square oo aan biyo lahayn oo saxaradan ku saxarayna ay saa u tuulantahay ya meeloobo wuu in naxariistay ninkaasi wuxuu yiri halgan maxaad u samayn kartaa waayo muxuu iga badbaadinayaa taagnaankan taaganahay buu iga badbaadinayaa ha xaar baan habeenkii dhexurday laakiin maxay aniga ahayd habeenkii igu raaxo badneed baa weliga Ilaahayna meeloobo feverka uu sameeyay wuxuuna igu sameeyay wuxuu ka dhigayaa inuu aniga ciqaabayo ya oo waayo hadduu in yaro naxariis isaga laga dareemay isaga la dhibaateen laakiin aniga wuxuu ii sameeyay fever bii sameeyay habeenkaas waxay habeen kaliya tan seexdayba muddo
saddex bilooda oon sibir jiifnay annagu cuntaday noqotay aroortii waxaana la siin jiray bakeeri yar oo shaaha oo bakeeri ana ma garanayo kolley wax isticmaalo oo meel lagu isticmaalo ma garanayo caag ah yaa lagu siin jiray in yaroo shaa iyo xabad furan kowda saacee habeennimana biyo maanaan lahayn biyo waxaa lagu siinayaa koob yar oo biyaa lagu siinayaa 24 hours roob la noo qiyaasi jiray nin roob la yidhaaho yaa noo qiyaasi jiray biyaha markay kowda saacee fiidnimo gaadhay waxaana la siin jiray makaroni biyo lagu soo shubay oo aan milix lahayn wax uu leeyahay jirin oo aan nafsadaada halkaa in ka degi jirin haddana maxaana lagu qiyaasi jiray gacanta dhigaa lagu dhahayaa gacanta arrintaasi maxay gaadhay dhammaan inaan fadhiga ka wada kici weyna arrintaa waxaa noo dheer waxaa weeyaan aroortii waxaan xusuustaa siraaja hadaluu yidhi meylooba weligaya allahay siraaja wuxuu yidhi markaynu halganoo dibadda u baxna hadduu ilaahay nabad inagu saara anugu u malayn maayo inaan nabad ku baxayne oo ilaahay muxuu ahaa jireec looma dhintay haddaan nabad ku baxno wuxuu yidhi dadku waxyaalahayna inaga rumaysanayn waxaa ka mid a aroortii intaad sibidh fadhiisato ya oo qiimayn aad halkaa la yidhaaho waa laydin qiimaynayaa aroortii kowda saac markay tahay yaa laga 8 duhurnimo yaa saanu u fadhina sibidhkaa yaa hal saac nala siin halkaas saac baanu madgaranaysaa gidaarka ku tiirsanaynaa haddana waan tukanaynaa intaan gebagabaysanaan tukanaynaa kadib haddana waan gelaynaa 7 saacee dambe ee habeennimo yaa saanu sibidhkaa u fadhino yaan ka kacaynaa wuxuu yidhi arrintaa maa la rumaysan buu igu yidhi muxuu ahaa halganow waxaan ku yidhi way adag tahay in la rumaysto ya way adag tahay baan ku yidhi in la rumaysto waa waxyaalaha ayna dadku qaadanayn buu yidhi halganow haddii aan mustaqbalka uga sheekayno ya waxaa kaloona xusuustaa waan daalay cunto la'aantii nadaafad la'aantii biyo la'aantii dadkii maxaa dhacday dhammaantanno inuu ceshaba un soo dhuldhaco oo markii dambe aan fadhiga ku tukanno ya rag waaweyn baa nagu jiray waxaa ka mida muxuu ahaa korneyl caydiid baa ka mida oo fadhiga ku tukaday maalintii ugu horraysaba intuu awoodi waayey siraaja ku tukanayay fadhiga maxamed aadan baa fadhiga ku tukanayay ya dhibaatada muxuu ahaa ninaanu saaxiib ahayn qiso ku dhacday intaanu guriga qawowga ku jiray ninkan saaxiibkana waxaa la yidhaahaa maxamed cabdulaahi ama kaag baa la yidhaahaa waa nin haybtiisu ay tahay muxuu ahaa ciise waa nin jabuutiyana kiisku u xidhnaa waxay ahayd nabadiid baa tahay muxuu ahaa oo anlafa ninkaasi wuxuu ahaa nin ganacsadaa waxaa laga soo qabsaday xuduudda soomaaliya iyo etoobiya somalilan iyo etoobiya xariirad meesha la yidhaha ayaa laga soo qabtay ninkaas oo muddo dheer dulmi ku xidhnaa dhibaato fara badan in ay soo gaadhay wuxuu ka mid ahaa intaanu guriga ku jirnay qaboobe ilaa garaaci la garaacayay 10 nin baa garaacaysay habeen walba 10 nin baa garaacaysay ilaa markii dambe uu habeenada ka mida uu jeclaystay in habeen walba la dhibaateeyo oo la garaaco inuu ka jeclaysto inuu muxuu ahaa ya inuu muxuu ahaa